Bismillahirrahmanirrahim. Dhammaan dhalinyarada barnaamijkan ku baro afkaaga hooyo kombiyuutarka aadka ula socotay daafaha caalamka meelihiisa kala duwan joogta. Waxaan casharkan ugu talagalay inaan idinku tuso kombiyuutarku marka uu ka cuslaado farsamayaqaan baa badanaa dadku u geeyaan, laakiin hab kale oo ka fudud wada kale oo ka fudud oo aad raaci kartid isla markaana uu ku noqon karo kombiyuutarkaagu mid sidiisa hore victorigiisa hore ee kambanigu uu ku soo sameeyay uu dib ugu noqdo. wadadaas marka waxaan rabaa inaan tuso. haddaba hagee loo maraa wadada noocaasa? waxaa loo maraa ugu horeyn waxaad tegaysaa search ama setting hadda kii aad jeceshahay. waxaad ku qoraysaa reset, waxa la yiraahdo reset. markaad tiraahdo halkan waxa kaaga soo baxaya reset pc waa ku dhufanaysaa. then waxa ku soo baxaya recovery reset pc. then markaa ka bacdi waxaad sii leedahay ogow laba siyaabood waa loo sameeyaa. marka aad doonayso kombiyuutarkaaga inaadan waxba ku reebina amaamiir buu ku siinayaa, amaamiirtaas aad raacaysaa. marka aad doonaysid in kombiyuutarkaaga xogta ku jirta kuu badbaadana amaamiir buu ku siinayaa, amaamiirtaas aad raacaysaa. haddaba waxaan ku ekeyn doonaa the last minute ugu dambeeya, amarka ugu dambeeya ah go ahead. ka bacdi waan jari doonaa. marka waxaa leedahay reset markaad tiraahdo kadibna waxaad dooranaysaa get start baa ku dhufanaysaa. get start markaad tiraahdo waa sugaysaa. halkan laba choice buu ku siiyey. choice-ka koowaad wuxuu ku leeyahay keep my files oo micnaheedu ah ii hay faylashayda, iyo remove any files oo micnaheedu yahay dhammaan waxa ku jira faylal gebigiisaba qashin ahaan iga saar. haddii marka programmo aad leedahay oo ku jiraan casharo ama dokumentiyo aad ku shaqaynaysay ama waxyaalaha la midka ah waxaa leedahay keep my files. laakiin programmeska sida hadda quickbook oo kale iyo barnaamijyo kale oo lagu shubo sida wordka office oo kale, sida for example browserada oo kale qaarkood way baxayaan marka laga reebo kuwa default windowska ku ah. laakiin waxaa ku haraya documentskaagi dhammaan wixii markaa aan windowska la xiriirin meesha way ka baxayaan. kaliya waxaa ku soo haraysa xogtaadii iyo wixii la xiriiray windowska. haddaad rabtid xogta xitaa inaad ka saartana waxaad isticmaalaysaa wadada labaad oo ah remove everything. so marka anigoo maraya bal wadadan marka fudud oo aan leeyahay faylasheeda iigdaa ayaa waxaan sii marayaa click kusii dhufanayaa. halkan marka wuxuu ka bilaabay get things ready. su-aalahaas marka casharka marka waa iska soo koobaynaa. aad baa umahadsantihiin. thank you very much. halkaan uu ku egyahay. waxaan sii wadi doonaa mar labaad ayaa waxaan samayn doonaa inaan isagoo dhammaystiran sameyno. thank you very much. soo dhawaada dhammaan dhalinyarada daafaha. waxaad subscribe garaysa socon kartaan page-ka loo yaqaan liban shure oo capital ah, liban shure oo capital ah oo Facebook ah. aad baa umahadsantihiin. thank you very much.